ummadan aynu ka dhalanay haddii uu sheekh yahay hadduu codkar yahay hadduu abwaan yahay hadduu waxgarad yahayba waxaa ku waajib ah in ummadan laba qodob laga xoreeyo laba qodob haddaynu ka xorowno ummad baynu noqonaynaa inta labadaa qodob ay ina gumaysanayaanna weligeen asaageen gaadhi mayn waxa weeyaan qabyaalada iyo qaadka labadaa cudur haddaynu ka xorowno ummad wax qabsata ayaynu noqonaynaa oo wadooyinkeenna wada qodxaha iyo dhagaxaanta iyo maxaanku ay daadsan yihiin hal maalin lacagta inaga baxday milyanka ah ayaa intaasoo wada inoo samayn lahayd guryo wada muraayadaynu yaan dhisan lahayn lacagta inaga baxda asaageen baa fooqya ku dhistay orday oo aada meelahay ka dhisteen waxaad arkaysaa baadiye cidlo ah oo fooq 3 dabaq 4 dabaqi ka dhisan yahay wax kalena lagama dhisana waa jeebkeena wax kale lagama samaysan marka horta xanuunkan inahayaa waa xanuun dilaa waa xanuun bulshada baabi'iya dhibaatooyin badan oo ku haya dhibaatooyinka oo inagu hayo dhibaato diineed baa kamid ah dhibaato caafimaad baa kamid ah dhibaato dhaqaalaha kamid ah dhibaato akhlaaqeed baa kamid ah dhibaato nadaafadeed baa kamid ah waxa kale oo kamid ah hurdo la'aanta boqolkiiba 90 dadka cuna siiba dadka hadii la yiraahdo dhiigoodu eeda yahay hadii ay qaadka cunaan kama seexan karaan ragga qaarkood cuntada uu ka xidhaa ragga qaarkood madax wareer buu ku keenaa qaarna yeelaalugu ku abuuraa mar haddii hurdadii yaraato oo cuntadii yaraato waxaa halkaa imanaya nafaqa darro wuxuu u nuglaanayaa in markaa xanuunadii feedhaha iyo TB-da uu qaado sidaa darteed baa mafrashyada lagu qayilo haddii qof TB qaba uu joogo inta kale oo dhan si sahlan ayuu u qaadsiin karaa sababtoo ah difaacoodii jidhka ayaa aad iyo aad u hooseeya oo qaadku markuu cuntadii ka gooyo oo hurdadii ka gooyo oo nafaqa darro ku rido resistankii awoodii uu iskaga difaaci lahaa cudurrada hoos bay u dhacaan heerka ugu dambeeya ee caafimaad uu gaarsiiyaa waxa weeye waa heer waalli ah ayuu gaarsiiyaa oo qofka bini'aadmiga tashwiish buu ku furaa wuxuu u sawiraa iyada oo cadow daba joogo ama satellite uu dul taagan yahay ama labadii qof ee wada sheekaysanayaaba isaga ay hadal hayaan ama mararka qaarkood waxau diiradda saaraa qoyskiisa uu ka shakiyaa oo leeyahay gabadhaydu caadi ma ahan waa qaba iyo wax la mid ah ayaa ka dhalata waana cudur hallucination la yiraahdo oo maskaxda uu ku dhaliyo bahalkan qaadka la yiraahdo sida khamriga oo kale marka ninku khamriga cabo ama ruuxu khamriga cabo kaadi badan buu sameeyaa kaadida badan meel kale kama timaado maadad ku jirta qaadka iyo khamriga ayaa waxay si qaldan amar u siiyaan unugyada jidhkeena ku jira markaas biyaha unugyada jidhkeena ku jira ee aanu ka maarmaynin bay ka soo nuugaan waxaana ku soo shubaan kaadi haysta dabadeedna kaadi tog ah ayaa ka furanta hadhow markuu qaadka ka kaco isagoo lahan iyo haraad hayo cunahuna uu qalalsan yahay ayay yaala ka kacaan biyo cabaya haddana hungurigii ma qoyayo halka uu ka haraadan yahay ma aha hungurigii caloosha ee halka biyaha tabaysa haraadani waa dhammaan salisyadii jidhka oo dhan baa biyihii looga yeedhay qadar aanay ka maarmaynin isagoo calooshii ka wabxay oo biyo badani ay ku jiraan ayaa haddana maskaxda uu ka haraadan yahay oo mar walba uu doonaya inuu biyo cabo markaas wuxuu ku odhanayaa biyuhu ku haraad tiri maayaane ama maraq diiran cab ama shaah diiran cab kuwaasa ka jabin doona lahanke iyaguna waxba kama taraan habeenkii isagoo haraadan buu seexanayaa marka uu seexdo ayaa habeen walba wuxuu ku riyoonayaa iyadoo webiga qaadeen lawaanin haraadane isagoo roob ku da'ayo hafanaya isagoo bad ama dooni ka sii dhacaya meel biyo ayaaleyn unba habeen oo dhan uu ku hafanaya wax kalena ma ahane waa fariin ay maskaxdu soo dirayso oo ay leedahay ma gaarsiin karayno baahida biyaha jidhku qabo anigu ma wada gaarsiin karo biyo igu filanna ma haysto taasi markaa waxay keentaa in maskaxdu si tartiib ah xajmigeedu u soo yaraado dabadeedna dadka qaadcunka iyagoon aynigoodii gaadhin in xasuustoodu yaraato oo marka dambana asaasaqu ku soo degdego oo dhaqso ay u asaasaqaan ayaa dhacda haddii aanay halis kaloo ka weyn oo markiiba iilka dhigtaba aanay ku imanno isagoo daanka ku haya aan wadnuhuba istaagin boqolkiiba 90 dadka qaadka waxay u dhintaan ama waa sanbabada ama waa kelyaha ama waa wadnaha ama waa maskaxda waa inta xubnooda ugu muhiimsan ee jidhkeena maamusha noloshooda maaraysa intaba uu saameeyaa هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي